حكايها UBD سنوش ما نقول وش هي أنا قدنا هاي تحي أنت أهما وتريو أولا كذي تيران تروفاس إن سومالي ومدحمي كنا فوق من هوية وأنا وش خانسة أنا كتير اسميها سومالي سو قيب كتر لقب Soomaaliya siyaasadeeda aniga waxay ila tahay meelaha ciladaheeda u jeeda ay jiraan waxay tahay sida aan u noolnahay iyo sida xaalkeena siyaasad yihiin Soomaali in ugu wada hadasho lama rabo awood qaybsiga Soomaaliya 4.5 qabiil yiraahdo daarood hawi dir digri milifle iyo qabiilada kale isku tagay ku dhisan tahay awoodda la qaybiyana saasa lagu qaybiyaa markii la qaybinayo markii aan nimid annaga isbeyska dib xoreynta aan ahayn inaan diidnaan isku daynay oo inaan 4.5 la ka daayo bilo ee Djibouti waa halkaas wax yarnaa oo diidanayn 4.5 waana ka diiday waxa la yiri welcome to 4.5 ayada ku shaqeynaysa markaan dawladdii soo noqonay waxaan damacnay inaan dhahno 4.5 ka siyaasadda lagu akeeyo oo maamulka dawliga ah iyo nidaamka dawliga ah dadka lagu soo xulo khibradooda iyo way aragnimada sababtoo qof aad ka dhigaysa agaasimo guud ama xoghaye joogta ah ama aad ka dhigaysa taliyaha hay'adda nabad sugidda ama taliyaha xoogga dalka Soomaaliya hadaa tira qabiilan ku soo xulaya da wixii waa profession iyo shaqo waay waana la ka diiday yaa diiday waxaa diiday dadkii siyaasiyiinta ah oo golaha nagula jiray wasiirada waxaan xasuustaa dood maalin dhacdo la yiraahdo wax kasta waxaa laga dhigayaa 4.5 waxaan ku yiri 4.5 oo power sharing wax walba in laga dhigo أنا مركب waxaan soo jeeday hadii power sharing la sameeyo awood qaybsi la sameeyo risk sharing hala sameeyo dhibaatada hala qaybsado ani waxa laga yaabaa dagaalka saaka shaab la galay inaan 20 qof oo isku jufanahay ku soo dhimatay qof cabinet dhinac ka fadhiyana wax ka soo dhintay aysan jirin marka hadii awoodda la wadaagayo dhibaatada iyo mashaakilka hala wadaago oo la jeedo yani intana ka dhibato hadayna ka dhimaneen intii dhimatay loo badiyo xilalka hadii wixii wadaag ay tahay bas awood hadii awood cidla in la wadaag wax la wadaaga hadii awood tahay riskina waa in la wadaaga dhaqaalahana canshuurta dawladda soo galayso meesha ka iimaanaysana waa in lagu bees gareeyaa inta deegaanka ka iimaanaysa intay la eg tahay hadii marka la taanataaneeyo awood wadaaga hadii la taanataaneeyo oo dadka qaarkood aan ka kari laanahay marka aniga mar raba marka muuqaal inuu soo baxa ah dad aanan hadii la dhimanayane oo dalka difaaciisa loo dhimanayane dadna aysan ka dhimanaynin haddii canshuur la bixinayaan canshuur aan bixinaynin inay jagooyinkii ugu sarsareeyay dalka haystaan waxay wiiqaysaa in hore loo socdo haddii marka laba mida marka la rabaa inaan iska dayno oo 4.5 ka maadaama matalaad uu yahay siyaasadda lagu ekeeyana waa wax la gartay oo arrin la xun ma aha intii la soo gaaray dadka inay codeeyaan oo dadka laga tiri badan yahay ama loo awood sheeganayo inaan la maqoonin siyaasadda matalaad siyaasadeed la siiyo laakiin hanaanka dawliga iyo shaqada dawliga ay noqoto profession haddii la diido la yiraahdo wax waa la qaybsanaya hadda qaybsigana waa inuu marka noqdaa riskiga iyo dakhliga iyo waxa iimaanaya waa in la wadaaga noqonaysa